waxaanu imika si aan baqaadayna qaybtii labaad ee sheekadii aanu ugu magac darnay Guantanamo Bay 2 oo aan uga hadalnay sidii dalka Cuba uu Mareykanku ugu khiyaanay heshiiska uu kula wareegay gacanka Guantanamo oo farsamo ahaan ka ijaaran balse uu xoog ku haysto balse taariikhiyan heshiisyada dunida soo maray ee saameynta yeeshay ama reebay nabaro iyo cambaaro aan raysanin waxa kamid ah heshiiskii uu Shiinuhu Hong Kong uga ijaaray Britain 1898 kaasoo dhalay in Ingiriisku uu halka iska haysto tan iyo 1997 oo dib loogu soo celiyay dalka Shiinaha hardan dhib badan kadib iyadoo laga haystay 99 sano tii faa'iidada dhaqaale ee heshiiska laga dhaxlay ay ka dhib badnayd gorgortanka ay gashay madax banaanida geeyay ee dalkaasi sida darteedna Soomaaliya waa inay tusaalooyinka wax ka barataa kuwaasoo muujinaya in mararka qaarkood dalka qayb ka tirsan dhulkiisa wadan kale ka ijaara ay ku adkaato inuu ka taliyo goobta uu ijaaray mararka qaarkoodna dhaqaaluhu aad ayuu xitaa u yar yahay tusaale ahaan Guantanamo dalka Cuba waxa sanadkii ka helaa $485 oo qura taasoo ah lacag dhururuq ah marka la eego faa'iidada istiraatiijiga ah ee gacankaasi Soomaaliya lafteeda ayaanay sidaa ku dhici kartaa haddii ay gasho heshiis uu qoran qaab sadar ku leexsan yahay iyo tibxo aan isu dhigmin damaca istiraatiijiga ah ee Itoobiya ay ku doonayso galaan galbeed waa la fahmi karaa balse Soomaaliya waa inaan marna lagu cadaadin inay gaarto go'aamo degdeg ah sida darteed wadaxaajood kasta oo Itoobiya la galayo waa in diiradda koowaad la saaraa muhiimadana la siiyaa danaha qaran iyo madax banaanida geeyay ee dalka Soomaaliya waxaan warqaadka modern diplomacy soo jeedinayaa in Soomaaliya ay ka fikirto oo qura in Itoobiya ay siiso galaangal dhinaca dhaqaalaha ah oo dekedaheeda wax uga la soo degayso si la mid ah midka ay kula jirto Djibouti heshiiska noocaas waxa uu kobcinayaa ganacsiga iyo iskaashiga gobolka iyadoo aan gorgortan iyo dood la gelinin madax banaanida dalka Soomaaliya waxa inta dheer Soomaaliya waa in arrintan kala tashataa khubaro dhinaca sharciga ah iyo dad aad ugu faradhowdhoban diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah si hubaal lagaga dhigo in heshiis kasta oo la galaya uu yahay mid cadaalad ah daahfuran isla markaana laga bixi karo oo la dhaqan gelin karo sidoo kalena madaxda dawladda federaalka waxaa looga fadhiyaa inay arrintan kala tashadaan xildhibaanada labada aqal iyo muwaadiniinta Soomaalida oo ay ka tala galiyaan go'aamadan si looga fursado inay dhalato aragti ah in wax lagu saxiixayo daaha gadaashiisa taasoo markeedana wiiqaysa kalsoonida shacabka ugu dambeyn Soomaaliya waa inay sidoo kale xoojisaa ologga iyo isbahaysiga ay kula jirto dalalka gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyadoo dhismaha isbahaysiga noocaas ahna uga gol leh in iskaga caabiso malabsiga Itoobiya si ay u ilaashato dalkeeda iyo dadkeeda waxa la gaaray xilligii foojignaanta Soomaaliyana waxay taagan tahay jid isgoys ah waayo jeer uu kordhayo damaca Itoobiya waxa sidoo kale kordhaya halista ah in ay Soomaaliya gaarto go'aamo khaldan maadaama ay Soomaaliya tahay dal siyaasad ahaan qaybsan kuna socoto siyaasad qaran oo aan sida u qoto dheerayn si weyn aan loo qorsheynin mararka qaarkood ijaarista qayb ka tirsan dalkaagu waxay u muuqan kartaa xal sahlan balse waxay albaabka u furi kartaa inaad gasho qarni shalay ah marka iyada oo taariikhaha iyo sooyaalada siloon ee dunida soo maray wax laga baranayo Soomaaliya waa inay dhowraarisaa mustaqbalkeeda fog isla markaana ay hubaal ka dhigtaa in khayraadkeedu uu si adag ugu jiro xukunka Soomaalida isagoona ku jira dhufays dhuleed sisib ah oo lagu xiray qunful adag waxa maqaalkan modern diplomacy ku qoray Ismaaciil Cusmaan Maxamed Xaaji Hadalsame TV